كحسبي ahaan waxaan leeyahay shacabka in la qanciyo waa waajib weeyaan marka haweenkana waxaan leeyahay inagoon baan horta dib isku dhigna maayarkuna waxa weeyaan inay inuu qanciyo shacabkiisa marka maayar shacabkaaga qanciso shacabkana waxaan leeyahay cashuurta waajib iyada inagu tahay inaynu bixino waa wax dastuur qaran aynu leenahay kulan wacan oo wanaagsan dhammaan baakhiyarta hawada naga daawanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelan doono kaltuun aadan xaashi xoghayaha horumarinta haweenka ee xusbiga ka ku soo dhawow Sky Cable TV ku dhawahay walaalo wad mahadsan tahay sida wanaagsan aad ii soo dhaweysay adiga iyo bahda Sky TV ba aad baan idinka mahadcelinayaa waana dhawahay walaal caawa waxaan iska wareysan doonaa doorashadii 13 November 2024 ka qabsoontay guud ahaan Somaliland kaltuun ka waran qaabkii ay doorashadu u dhacday iyo sidii ay dadku u codeeyeen iyo qaabkii aad campaign-kii ololaha doorashada intii uu deenan soo taxnaa walaal waad mahadsan tahay kolley caalamka oo dhanba way la socdeen Somaliland sida ay ugu dhacday doorashada markii ugu horeysana ma aha oo mar walba horta anagu waxaanu ku caanamaalnay hadaynu nahay Somaliland qaabka aynu doorashooyinka aynu u gelino iyo qaabka ay shacabka Somaliland ay maaragtay isaga dambeeyaan maalintaas ay aadka ah xasaasiga ah alxamdulillah waxaa dhacday mid aad iyo aad caalamka ay ugu wada faraxsan yihiin ka xusbi ahaan door intee leeg ama door noocee aad ka qaadan doontaan mucaaradnimada ama dawladda cusub ee dhawaan loo caleemo saari doono Somaliland horta ka waa xisbi qaran maanta noqdo alxamdulillah waana xisbiga aadka ugu cadcad laguna rajan weeyahay wax qabadkiisa insha Allah sidoo u shaqeyn doono kolley isbahaysi baan ahayn xisbiga wadani iyo ka si fiican baan u soo wada shaqeynay shaqo badan baa ka wada dhaxaysay waxaan rajaynayaa in ka xisbi ahaan ka in aanu ka dhex muuqan doono dawladda cusub insha Allah dhawaan haddii ilaahay ka dhigo maalmahan media waxa ka soo muuqanayay dad badan oo daamo kala duwan oo Hargeysa kamid ah mucaaradayay qaar kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani uu kamid yahay maayarka oo meelo badan ay ka cabanayeen lahaayeen waxba noloma qaban cashuurteedii qaarna ay yiraahdeen ma bixinayna cashuur bal hadda ka xusbi ahaan ka sideed u aragtaa ka xisbi ahaan anigoo oranba ka shakhsi ahaanba ma aha mid wax qurux badan sababtoo ah inagu mar walba waxaanu ka talinaa nabadda ta shacbiga markaste sax iyo wixii caalamka ay naga qaadanayaan sawirka guud ee maaragtay naga baxaya sax anigu waxaan oran lahaa shacabkayga Somaliland iska daaya mudaharaadka khayrna ma aha wax fiican ma soo kordhiyo sax shacabku horta xaq bay u leeyihiin in waxooga ay ogaadaan yani ay gartaan oo la xisaabtamaan maayarkooga sax wax hore u dhici jirtay weeyaan oo maayarkana waxaan leeyahay waa mas'uuliyadan aad ku saaran weeyaan in shacabkaaga aad qancisaana wax wanaagsan weeyaan in shacabka iyo maayarka ay isla xisaabtamaan oo maayarka la xisaabtamo anigu maayarka quraatana ma ilaahdeen golaha deegaanka oo dhanba waayo waa la wada doortay keligii maaha sax shacabku horta in la qanciyo ay waajib u leeyihiin maayarkuna waxa weeyaan inuu qanciyo shacabkiisa sax oo cashuurtooda ay sida u baxday iyo wuxuu ku qabtay inuu ka qanciyo waa waajib sida maayaradii horeba ay u qancin jireen shacabkooga sax marka waxaan leeyahay maayar shacabkaaga soo horjoogso ama xafiiskaaga ugu yeedh ama meesha doonta ahaatee horta shacabkaaga qanci
صح oo soo horjoogso صح shacibkana waxaan leeyahay maayarkiina waad la xisaabtami kartaan waa weydiin kartaan صح laakiin mudaharaad iyo waxyaabahaas iyo waxyaabaha miidiyaha maaragtay lasla dhex wareegay oo kale ma wanaagsana inaga daaya xaalka dejiya ka xisbi ahaan waxaan leeyahay shacibka in la qanciyo waa waajib weeyaan marka maayar shacibkaaga qanciso shacibkan waxaan leeyahay cashuurta dee waajib bay iyada inagu tahay inaynu bixino dee waa wax dastuur qaran aynu u leenahay weeyaan awal sidaynu inagu bixin jirnay cashuur ahaan weynaan u bixinaa iminkana laakiin dee in xisaabtii meesha timaada marka shacibku hadday maanta weydiistaan maayarkooga yidhaahdaan maayar waanu kula xisaabtamaynaa dee in dee ay bulshada dhexdooda waxyaabo badan ay isweydaarsadaan ma wanaagsan aniga ra'yigayga صح marka waxaan leeyahay shacib maayarkaaga soo hor istaag shacibkana xaalada dejiya waayay kaltuun su-aasha ugu dambeysa guud ahaan shacabka reer somalilan halkan maxaad uga faa'iidaysanaysaa ood fariin u daraysaa kow guud ahaan shacabkayga somalilan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay nabad ku waara iyo horumar saran idiin rajeynaya horta maadaama anigu ahay dhashii snm aada horta shacibkayga u jecelahay number one oo dee dalkaaga iyo shacibkaaga wax la siista ma jirto صح horumarkoogana dee wax aada u wanaagsan wax dee adigu ku farxad gelinaya shacibkaagii maanta horumar gaaraya dalkii hore yani hore u dhaqaaqay waxyaaba badan lagu soo kordhiyey meel walba dhismo waxaad arkaysaa fooqyo badan oo dhismayaal fara badan ah oo caasimada kusoo kordhay caasimada kusoo kordhay horta waxaasi wax dee shucuurtaada bedelaya weeyaan oo aad ku farxisid weeyaan madaxweynihii horena aada baan horta u hambaliyeynayaa sida wanaagsan oo natiijadeed maaragtay soo baxday ay ugu qaatay uu aqbalay una hambaliyeeyay dabcan waxaan leeyahay guul iyo horumar baan insha alla ku rajeynayaa meel kastaad joogto aada baanan ugu faraxsanahay intii uu xilka hayay waa in de wax qofku waxqabadkiisa inaad wax ku sheegtaa waxba uu qabtay qofka waxuna ma qaban marka wax kastoo waxaan leeyahay madaxweyne aada hore u qabatay waanu kaaga mahad celinaynaa maadaamaanu nahay muwaadiniintii somalilan madaxweynahan cusubna waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawoow allaha kuu fududeediyo xilka cusub insha allah la wareegi doonto kaltuun xogayaha horumarinta garabka haweenka ee xisbiga kaax iminka dowladda cusub dee soo korodhay iyo maxay taleen xisbiga kaax oo kasoo gudbay ururnimadii iminka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan haweenka maxaase kusoo kordhi doona maxaase iska dhimi doona wallahi horta waa su-aal wanaagsan oo aada u qiimo badan maadaama aynu nahay horta haween waa haween waynu iska wada ognahay waxa weeyaan haween waa lafdhabarta bulshada waa lafdhabarta qoyska de nin walba maanta wax ah de haween baa ka dambeysa صح madaxweynaha maanta la doortay ee xilka usoo baxay insha allah rajin doona dee haween baa ka dambeysa guushiisa markaynu xaqiiqada ka hadalno waxaan filayaa in ay door muhiim ay ka qaadan doonaan dowladan cusub insha allah dhalan doonta haddii ilaahay ka dhigo ha waan aada ugu rajan weynahay inay haweenku ay ka dhex muuqan doonaan insha allah sidii hore si ka duwan kolley maadaama isbahaysi lahaana dee waxaan filayaa guddoomiyaha iyo madaxweynaha kolley dee arrin bay meel isla dhigeen صح marka waxaan leeyahay haweenka yaana la ilaawin guusha kadib haweenka waa la ilaawaayo صح haweenka yaana la ilaawin haweenka horumarkooga in laga shaqeeyo weeyaan shaqo abuur loo sameeyo wixii kalena dee ay lala qaban karayaan ama la taageeri karayana in la taageero ayaa muhiima marka haweenkana waxaan leeyahay inagoon baan horta dib isku dhigna صح waxba dumarka qaar waxay yidhaahdaan ninkaygii baa igu yidhi sidan ninkaygii baa ceenka ninkaynasa markaa waxaan leeyahay waxaasno iyo waxaas ma wax jiri karta maaha waayo ninku siduu dee maanta loola soo tabcayo xeerka la soo gaarsiiya ina walba dee reerkeeda dee nin kastaba hooyaa korisay noloshiisa usoo dhistay iyaduna teeda ha u dhisto صح marka waxaan leeyahay dumaroo inagaa hoos isku dhigna iyo inaan hoos isku dhigin inaynu isbarbar istaagno inaynu gacmaha isqabsano
in horumarkiina ka wada shaqeyno baa leenahay oo codkiina kor u qaadno marnaba inayna hoos isku dhigin. waayahay kaltuun aad baad u mahadsantahay wareysiga sida gaarka aad noo siisay Sky Cable TV waan kaaga mahadcelinaa waqtiga aad noo hurtay iyo intii aad noo timideen nala joogtayba. intaas waxaa inoogu soo dhamaaday wareysi gaar ah oo la yeelanay xoghayaha horumarinta haweenka xusbiga ka kaltuun aadan xaashi aad bay u mahadsan tahay. intaynu ku kulmi doono wareysiyo sidan oo kale waxaan idinku dhaafnaa anigii bahda Sky Cable TV ba sidaas iyo nabadgelyo.